xog buuxdo waxaan kaga hayaa madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu damacsan yahay in wasiirkiisa arrimaha dibadda uu ka dhigo haweeney Soomaali ah mas'al ahaan ka soo jeeda wadanka Soomaaliya asagoo uu ku guul dareysay ama eedan u soo jeediyay Monica Chuma oo haweeneyda hadda xilka haysa sida ay maanta ay baahiyeen qaar ka mid ah wargeysada ka soo baxa wadankaasi Kenya waxa ay sheegeen madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta uu qorsheenay xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waa xilka wasiirka arrimaha dibadda wadankaasi Kenya oo magacaabo haweeneyda lagu magacaabo Amina Maxamed ayaa ah gabar asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya balse Soomaali Kenyan ah xilal kala duwan ka soo qabatay dawladda Kenya oo dhowr mar hore xilal kala duwan ka soo qabatay Uhuru ayaa la sheegay in gabadhan uu doonayo in uu u adeegsado kiiska badda maadaama ay tahay qof si weyn ay u taqaan arrimaha Soomaaliya asal ahaan Soomaaliya ka soo jeedo ama u dhalatay ama ka soo jeeda beesha daarood sida darteedna hadda uu qorsheenayo inuu ku bedelo Monica Chuma oo sheegay inay ku feelgarooday arrimaha dibadda gaar ahaan muranka badda ee labada dawladood u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo Monica Chuma ayaa lagu eedeynaya inay ku feelgarooday muranka labada dawladood ee dacwadda badda u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaana dalbatay in 12 bilood dib loo dhigo ugu dambeyn maxkamaddu ay ka aqbashay in 2 bilood dib loo dhigo kiiska dacwadda badda.